يا حاجة لك كير جونا ساكا وريجلي بلاقي كيري يا sheekh cabdilaahi cumar cabdi daawle sheekh rushayare maamulaha ahna milkiilaha xarumaha shifada daarutooba faraciisa xarunta dhexe ee magaalada caasimadda muqdisho gaar ahaan isgoyska baar waxnabaaxiga carwi ciidka uu ku leeyahay ayaa waxa ay ku dhowdahay muddada uu halkan ku sugan yahay sheekh rushayare ku dhowaad 2 bilood iyadoona ay u sii idlaatay muddo 30 cisho ah haddii aysan wax la jirin isagoona muddadaasi dadyo badan eeba ku caafiyey tuftiisa iyo dadaalka uu ku sameeyey horumarinta dabooyinka heerbalka ee sheekha uga yimaada wadamada dibadda gaar ahaan kuwa uga badan ka soo gaara wadanka Pakistan. Sheekh Cabdilaahi Cumar Cabdi Daawle sheekh Rushayare ayaa maanta waxa uu dabeeyay gabar aad u yareed taasoo ay hooyadeed keentay gudaha shifada daarutooba isgoyska baar waxay magaalada muqdisho iyadoona maalmihii ugu dambeeyay ay ku hoyanaysay guri aan gurigooda ahayn ayna ku badbaaday maamulka degmada Wardhigley gaar ahaan gudoomiyaha degmadaasi oo ay sheegtay in gabadheeda ay ka qabatay ayadoo ambad ah qaybo ka mid ah degmada balse miirkeeda uusan joogin muddadaasi alla mahadiisana ay halkaasi ku amaahishay sidaasina ay ku dareentay in gabadhu ay waxyaabo badan ka qaldan yihiin kuna soo gaarsiisay shifada sheekh Rushayare ku leeyahay isgoyska baar waxay magaalada muqdisho. haddaba aan idin kala dhexbaxo xaaladda gabadhan iyo markii uu sheekh Rushayare quraamiyey waxa ka soo dulqeyliyay hal sano bisha ku jirtaan dhageysta ragay dumarka yaa badan dumarka ma maqlaysa dumarkiina maxaa ku leeyahay gabadha saqiirta wariya guriga ka burisaan maxaa ku leeyahay ma ku maxay ku fiican tahay ku leeyahay way hol badan tahay hooyada way jeceshahay hooyada ma laga soo mari karo dadka hooyada laga soo mari karo haye marwal baawarta ku direena caaswaaldan waa ka dhigna wax walba ma ku fiicnaada gabadha wax kasta kuma fiicno waalidkay jecleed waa ka leexiseen waa ku dirteen caaswaaldan ka dhigteen xagee xanuujisay gabadha madaxa kow iyada dhan leesiya ka dhignay ayadoo leesiya ka dhigteen hoosha hooyada u qaban lahayd waa ka joojiseen dhageyso Suuriya meelaha ugu daran qabatay madaxay xagee kale way iyo lugaha xagee kale feeraha xagee kale meel kale ma jirto ya xagee laga keenay gabadha saaka وريجلي بلاقي كيني يا حاجة اللي جاي مركل كيني وين بلاقي يعني نادالة ساقطتي هاي صارت يا كوجتين واحدة باتو ميدا جيسنيها جيسن مالا حسايد قوالين مين اللي جاي مالا محدو لي هذا مركا مالا حسايد قوالين مالا يا لسه اللي قبضان هو يدا كالي بسرعة تعالي إلى هنا لقي سوريا ما يبغى يسا رجينا أنا محاكي لسه تنقبل إيدك هو يدا ده هي جعلناي وهذا هو يدا جعشين ما أينا قال يسمى مركا أورتي كمان بلا سامرا يا كمان بلا سامرا حاجة كانت ساكا وريد لي حاجة اللي جاي شيء قام ما عندك كل حاجة قالوا مثلا أفر مع الدنيا بالمد وريد لي إيش أفر مع المد الدنيا وريد لي أقول بيدو كويسي كويسي أيضا ما راح تصعد الدنيا سوق قبطي حبيبي أو دبل ذكى الدنيا قبطي إذا أبتجت معي أبتجت مكسالي هي أبتجت كربت معتري كمان عملت كذا هي مال هي أعطيها أنا أبتجت معتري أبي حتى ما أقول أنا هي قول بس مرة واجد توقع لنا أنت سكن واسع مرجع بالخطة هي شنطة حبيبي هي حتى يقول لك أنت عم بيا صدق واحد مكوب بيد المركب كم يدروي وريا دقي سوق دكتور القرآن حتى كتاب وقاعد من دكتور متجسو لو قاس كفيسة مركب المهر بيه وريا دقي سوريا لا يبغى يساريها يا واي قبل أبتيجي المركب عنانا هاي قف كده هاي أبتيجي هذا معنا منا نقانو أبتيجي مع قف أيوها يا أيوة ما هي إذا قاعد هيدين
ujeedada iyo hadafka akaleeda maxay ahayd marka guriga ina ka raacdaysaan baad rabteen imisa habeen bay gurigooda ay ka dhaxday imisa habeen bay ka dhaxday marka ugu dambeysay goormay ahayd يا ما يقهوي بيك ما نقول جا حكي جبت مركا يا قول إسلامات ما دمر بقى إسلام سرق بقى قول جا يا دمر ما أيدا قول جا توصل عبارتي مش قول جا ولا جاي يا جاي ناته يا كمان قدوميها وريجي بقى ستي يا هاي maxay ugu talagashay marka hooyadina ka fogeysaan aad rabtaan marka ya guriga gadoomiyaha marka maxay ku jeclaatay gabadha inay joogto anaga jeclaysiinayna idinka jeclaysiinahay maxaa faa'iido idinkugu jirta marka hooyadina waxaarabna maskaxda gawaalno hooyadina ka soo fogeysaan kadibna hooyada maskaxda ka waashaan haye dhegeyso wariyaa ما مقلسا ما بحيسا مسالك سعنا يقول لك وريا ما بحيسا محلك يقول لك يا ما بحينا لو هذا مرضم بقى يقول لك أرضي سمالارك يا يا مالارك يا مرضم يا قرآن نصرتين أنت قرمك أنت خميستي ما لقيت لي مركا ما أنت أقرش ولا يدعي لنا وريا دقيسو هل كان قبل ما يقام على المدى الكاني إيه كان شيء لوضع معنا قرمي هاي قميصتي يو شلون سبت على مكيني ما حكون مشغول السنة maxaa maanta idinka hadalsiiyey oo khamiis u heli weeyey waa isceli weeyey guri dambe ayadoo ka ordaysa ma la arkaya soo raac gacanta dhaqso usi soo raac halkaas soo istaag halkaas soo istaag ma lagu arkaa mar dambe ma lagu arkaya yaa ku haraya maanta wixii ka dambeeyo hawsha guriga ma u qabanaysaa hooyadeeda jacaylkii u qabtay ma u haynaysaa jacaylka ma u haynaysaa jacaylkeeda hooyadeeda yaa madax dambe iyo lugo dambe iyo feero dambena halkaas soo istaag guri wariyaa yana ku arkin bax waa duwistii farsamadii codayntii anigoo maxamed yuulka inta raxinta lamida kulmi doona asxaabay nabadgelyo